aynu ku bilownay markaan waxaa si muuqata u guuleystay siyaasadii nabad iyo nolol iyo qorshuhu uu doonayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana markaan la heshiisiyay General Xuud iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle taasi waxay ka dhigan tahay bilowga socdaal Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ku tagayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si uga qayb qaato doorasho halkaas ka dhacaysa isla markaana u difaacdo kursigiisa xildhibaannimo. General Abuukar Xaaji Warsame oo si weyn loogu yaqaan Xuud ayaa waxa uu leeshiyay maamulka Hirshabeelle wuxuuna sheegay in maamulkaasi wixii haatan ka dambeeyay uu ku biirayo. Xuud oo hareerihiisa ay taagan yihiin taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed Taaliil Biixi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya xaqa ka maqan waxa ugu yeeray reer Hiiraan ay ku raadinayaan qaab wada hadala. Dadow la isma dhibi karo ee ogaada dagaalna ma socon karo ayuu hadalkiisa ku daray isagoo si hadlayay wuxuu yiri waa in qof walba